السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي waxaan ku guda jirnaa barnaamijyadii aan uga hadlaynay qoyska iyo guryaha iyo in qoysku wanaagsanaado. Maantana waxaan ka hadlaynaa qodob ku saabsan adeec ninkaaga. Gabdhaha Soomaaliyeed ama dhammaan gabdhaha muslimiinta ah waxaa looga baahan yahay in ninkeeda ay adeecaan oo aanay raacin dhaqamada reer galbeedka ee lagu burburinayo qoysaska muslimiinta ah. Gabadha muslimadda ahay waxaad ogaataa xasiloonida nolosha iyo inaad ku guuleysato nolosha guurka kuna noolaato rayn iyo farxad waxaa saldhig u ah adeecida ninkaaga. Waxaad ogaataa gabadh yahay muslimadda ahi in guurku yahay shirkaduna sida aad ogtahay waxay u baahan tahay maamule kaas oo nidaamiya oo isku dubarida arrimaheeda. Sidaa darteed ayuu Ilaahay ninka shaqada u doortay. Ilaahay wuxuu quraankiisa ku yiri ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwaalihim. Raggu iyaga ayaa dumarka ka sareeya waxa Ilaahay u kala fadlilay awgeed iyo waxa ay bixiyaan oo maal ah. Gabadha muslimadda ahna markaa waxaa la gudboon inay maamulkiisa ogolaato oo ay ku adeecdo oo ay fahanto in adeecitaankaasi yahay mid cibaado ah oo ay Ilaahay ugu dhawaanayso. Nabigu wuxuu yiri naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee haddii ay gabadha muslimadda ahi dukato shanteeda salaadood bisheedana soonto ninkeedana adeecdo waxaa lagu yiraahdaa jannada ka gal meel alla meeshii aad doonto. Adeecida laga rabo gabadha muslimadda ah waxaa soo hoos galaya marka uu u yeero oo ay ajiibto marka uu u yeero. Waxa uu u yeero waxa uu doono ha ugu yeero inay hadalkiisa yeesho. Haddii aysan ugu yeerin wax shariicada islaamka ka soo horjeedo ama wax macsiya. Haddii uu furaashka ugu yeerana ay u degdegto oo ay degdeg u maqasho. Hadiise ay diido waxay noqonaysaa mid dambi gashay oo Ilaahay caasiday oo lacnadii malaa'igta mutaysatay sida uu yiri nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Haddii uu ninka xaaskiisa furaashka ugu yeero oo ay diido oo uu cadho ku waabariisto malaa'igta ayaa la nacdasha ilaa inta waagu ka baryayo. 2 in aanay guriga ka bixin isaga oo aan u idmin. Adeecida waxaa kamid ah inay guriga ka bixin isaga oo u ogolaan mooyee. Bixitaankeeduna waa inuu ahaadaa mid waafaqsan sharciga oo ay jidkeeda xijaabkii sharciga ahay ku sii deyso oo indhaheedana laabto marka ay dariiqa marayso. Lugaheedana ayna dhulka ku dhufan. Haddii ay cid rag ah la hadlaysana aysan hadalka u dabcin oo ay qalbigiisa bukana u damcin. 3 in marka uu maqan yahay ay xifdiso naftiisa, maalkiisa iyo caruurtiisa. Adeecida waxaa asal u ah in gabadhu marka ninkeedu safro ay nafteeda xifdido waayo nafteedu waa ammaano inay maalkiisa xifdido oo aanay ku bixin ilaa wixii uu isagu ogol yahay mooyee. Marka laga reebo wixii uu ogol yahay ay ogtahay inuu raali ka yahay sida suurida martida amaba qof gaajaysan oo ay cunno siiso. Wixii intaa ka hadhay waa inay ka digtoonaataa. Rasuulkeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri dumarka waxaa ugu khayr badan ta marka aad eegto ku farxad gelisa, marka aad amartana ku adeecda, marka aad maqan tahayna xifdisa nafteeda iyo maalkaaga. Gabadh yahay waxaad u jeedo in quraanka iyo sunnada ay adkeynayaan in gabadhu ninkeeda adeecdo. Adeecidaasi waa mid aad ninkaaga qalbigiisa ku kasbanayso. Waa mid gurigaaga ka dhigaysa meel xasiloon oo bilaa buuq ah. Ilaa hadal ah
meel xasiloon oo bilaa buuq ah, bilaa hadal ah, bilaa dagaal ah. haddiise la waayo adeecida ninkaaga, ogow in uu gurigaagu uu noqon doono meel aan xasiloonayn oo aan deganayn, meel had iyo jeer muran ka jiro, doodi ka jirto, dacwadi ka furan tahay. gabadh yahay muslimada ahey ka soo qaad in gurigaagu yahay dowladdaasi haddii wasiiradeedu, hogaamiyaasha ciidanka, shaqaalaha iyo shacabkuba ay yihiin qaar u hoggaansan madaxweynahooda, dowladdaasi waxay noqonaysaa mid nabadgelyo ku noolaata, barwaaqo iyo horumar hiigsata. ay dowladdu tahay mid uu ka jiro haddii ay dowladdu tahay mid uu ka jiro isqabqabsi siyaasadeed oo madaxweynaha laga hor yimaado, waxaad dareemi kartaa dhibaatada ka dhalan karta arrinkaa iyo saameynta ay arrintaasi dalka ku yeelan karto. walaashayda muslimada ahey, gurigaagu waa dowlad oo kale, marka adigu kala dooro in dowladda aad wasiirka arrimaha gudaha ka tahay ay noqoto mid kala dambeyn iyo is ixtiraam leh, iyo inay noqoto mid fowda